السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaa nila hadlaya waa Mayran Cumar. walaalyaal waxaa isoo geliyay maanta abaayadana ila soo xiriirtay. magaceeda waxaa la dhahaa Xaawa Xasan Ibrahim. waa hooyo Soomaaliyeed oo raadinaysa wiilkeedaas waxay tiri waxay aan farahayga ka baxay oo u dhiibay reerihii dhalay markuu jiray 1 sano iyo bar. dabcan civil warkii markuu dhacay wax yar kadib weeyaan ayaa walaasheen Soomaalidu walaalayaal la tacaarifuhunna qabiilka in isku garto weeyaan si loo helo qof markii la raadinayna waa muhiim. gabadhan waa gabar daarooda, waa gabar dhulbahanta, waa gabar barkad ah. wiilkan aabihiis ayay guursatay oo waliba ilma abti ahaana isku guursadeen oo iyada wiilkan waa daarood, waa majeerteen Cumar Maxamuud ree aadan cigale ya weeyaan. waxaa la dhahaa Maxamed Saleebaan Maxamuud. walaasheen wiilkii way kala tageen. wiil abgaalay guursatay markaas xamar ilmo yaray ahayd, aad bay u yarayd. wiilkiina maadaama ay reerihii qaxayeen ay Kismaayo u socdeen iyo ninkeedii ay kala tageen, waxa wiilkii saasaa looga qaaday maadaama iyada xamar ku hartay ninkeedana ahaa nin hawiya oo abgaal ah. wiilkii way la tageen. Kismaayo dagaal ku dhacay, wiilka aabihiis meesha lagu dilay. halkaas wiilkii agoon ku noqday, rajana yahay oo ilaan hooyo ma haysane. ayaydiis iyo eedadiis aabihiis la dhalataa soo wateen. eedada markaa waxaa qabay nin reexa marka cadcad ah, shaanshi kolay bandhabow kolay reexa mar cadcadkeena banaadirka qabiilo badan ay leeyihiin ma garanayo. way soo baxeen oo Kenya yimaadeen. kadibna maxaytood banaadirigii dadkii la soo qaadayay ayuu wiilkii reexa markaa reerkiisa u soo qaatay iyo wiilkan oo hore u wateen oo agoonkana ahaa. dabcan hooyadiisna dee markaas xamar looga soo tagay iyadina way soo qaateen. walwalka may qabin. ree abti Cumar Maxamuudka uu ahaa ree mahad gabadha. waxay igu tiri walaashay iyagidna way soo qaxday Ethiopia timi iyadii ninkeedii caruuray dhashay. wiilkeedii curadkeedii buu ahaa. aad iyo aad bay mar walba qalbigeeda ugu jiray, way raadinaysa intaas. waxa loo sheegay in la qaaday. dadku way kala go'een. civil work waa arkeen, dhibaatooyin waaweyn baa dhacay. iyaga isla markiiba way soo baxeen reerka kan say ii sheegtay. Kismaayo markay yimaadeen odageedii meeshii oo wiilkii isqabi jireen lagu dilay wiilkeeda aabaheed way soo baxeen. dadkii koodii horeba Kenya soo galay ahaayeen. calaa kulli xaal sheekada waan soo gaabinayaa walaalayaal. muhiimadeedaan rabnaa inaan ka soo qaadano. hooyadan way dadaasho walaalayaal. hooyana waad garanaysaan. allah subxaana wa tacaala markuu Xaawo abuurayay oo aadan feertiisa ka abuurayay ayaa allah subxaana wa tacaala intuusan abuurin jismigeedoo dhan Xaawo ayuu walaale wuxuu abuuray makaanka oo loo yaqaano raxm. ilaahay bay uu baryay, riximkii baa ilaahay baryay walaalayaal. wuxuu ku yidhi yaa allah waxaad igu abuuri doontid yaa rabbi naxariis ii geli aniga waxaad iga abuurayso. ilaahayna buu u ballan qaaday. rixim raxmo yar baa la dhex siiyey hooyada iyo owlaadda. owlaad waxaad arkaysaa waalidkood arag raadinaya iyo hooyo ama xayawaanka naaslayda walaalayaal aad bay ilmahooda ugu ololaan, u raadiyaan, ugu ooyaan, u bartagtigareeyaan. hooyadan waxay ku leedahay ilmo kasta oo ilmahaygii la fil wiilkaygii da'aadiisa waan iska ilmayn jiray. way la soo xiriirtay. finally maraykankay ka soo raadisa way heshay. markay heshay aad bay ugu mahadnaqday eedada soo korsanaysay iyo ninkeedii iyo ayaydiiba. muddo masawirkiisa may helin. ilmihii gacanteeda kuma jiro, laakiin wanaag ayay muujinaysay. wiilkaa loo dhiibi jiray. wiilkii ma garanayo hooyo. waxay ku xiran tahay badanaa waalidku siduu ilmaha uga dhaadhiciye markay korsadaan. waxay tiri anigu waan dhiibay tiri. ilmo yarna waan ahaa, ninna waan qabay, anigaa qaladka lahaa, waan dhiibay bay tiri. waxaan ka cararayay eedda maadaama colaad jirtay
ما فهمتين wanaag ba aniga samee baan islahaa ilmo yar baan ahaa anaa dhiibay maaha inay iga qaateen laakiin anaa dhiibay iyagana way ku faraxsan laakiinse waxaan jeclahay tiri kolay wiilkayga messageka aan ka helayay marka codkiisa aan maqlo oo hooyo dhaho isagoo weyn baan dabcan helay tiri codkiisa maqlay wiilkii waxaa dhahday inuu kalgacal ii muujinaynin laakiin qush waxaan islahaa isbar hooyada ayaan ahay I know ina hooyaday tuu dhihi jiray tiri calaa kulli xaal eedada iyo ninkeeda waxay tiri ilaahay khayr ha siiyo wiilkayga korintay soo koriyeen laakiin waxa dhacday bay tiri maalin maalmaha kamid ah intaas telefoon muusa lahaan jirin bay tiri iga ii dhiibi jiray maalin baan marka waxay tiri aan la hadlay hooyo ii waran way waa fiicanahay aawa reerkii cumray aadan oo adiga hooyo maxaa ka reebay hooyo baasboor ma lihi waxay tiri xoogaa waa ka calool xumaaday laakiin eedada markay soo laabataan la hadlo waxay tiri baasboor waa loo samayn doonaa insha Allah tan kale ay hooyada ka calool xumaato waxa kamid ah oo hooyo walba oo ilmaheeda ka maqan yihiin ay dareemayaan waxa weeyaan eedada ilmihii ee dhasho dhan very successful noqdeen educationally xag walba wiilkan markii u dambeysay tiri eedadii aan soo wacay waxay ugu tiri siyaara shaqa uu aaday waxay tiri ma nasanin intaas dadaan raadin jiray ehel ah nin oo adeer ugu aadanaan siyaara ka helay xaraga intaas xirxiraayay tiri Sweden ay soo gashay processka Sweden passportka 8 sano lagu qaataa markaan helana waxay tiri coronavirus-kiya soo gala laakiin kama harsan wiilkayga qalbigiisa riximkii weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala hooyada ka ballan qaaday inuu awlaadeeda maaragtay dhex dhigo connection inuu ilaahay dhex dhigo waxay tiri qalbigayga wuu siin waay Sweden marka arko daadiisa qalbiga ay hur jirtay haween bar haday tahay ilmahayga xataa waa nacay iga tagaan ilmahayga wiilkaygi marka wiilkii nin bay raadisay waxa loo sheegay inuu nimo waaweyn la socday oo meesha homelesska ku jiray waxay tiri qalbigayga waa aad buu si dilmay eedadii wacday waxay ku tiri ilaahay khayr ha ku siiyo abaalkayga ma gudi karo wiilkayga ii raadi anaa raadin doono ninkii alla hadlay wuxuu yiri ani 3 jir ma raadin kari macnaha waxay tiri waxaan u arkaa aabba xanaaqsanaa maadaama aabbu soo korsaday inuu ku daalay ama ka madax adeegay eedadii 6 bilood ka bacdi ay raadis wiilkii wuu ka tagaalay yiri meeshii way aragtay way heshay way soo heshay tigide u geysay way ku barooratay eeda macaan soo bixay tiri eeda meeshii wixii looga baahnaa waajibkeedii gudata maaha wax lagu amaanayo eeda waajibkeedii ay lahayd bay gudatay waa amaano aakhiro ama ha xumaado ama hala dilo waa loo haystaa diiniyan walaalayaal eeda walba abti walba qofkii ehela oo awlaad mas'uul ka qaada waa loo haystaa walaalayaal aakhira eeda marka airportadii buu uga dhex cararo wuxuu yiri waxbaan ku jira anaa imaan doona eeda banaanka faraha iga qaad way dadaashay ilaahay khayr ha siiyo waajibkeeday gudatay wiilkii ma nasan bay tiri waa la waayay haddana waa baxay dhahday waxaa la igu sheegay inuu California aaday wiilkaygii waa la ah meydkiisii raqadiisii kulli waa la ahay saasay ila soo xiriirtay aad bay ii raadinaysa walaalayaal oo maaragtay waxay iga soo heshay walaalayaal wiilkii wakaasa abaaya la raadiya weliga yaa lahay ma oran waxa la faafiyo laakiin maanta waxaan idin leeyahay wiilkaas inaan u istaagno only things aniga aan sameeyo waxa weeyaan haddaan helo dhalashadiisa Maraykanka waa heli karaa state walba county jailkiisa ayaan gelin karaa da'diisa iyo magaciisa first name last name hadduu xiran yahay xabsi kastoo Maraykan easy walaalayaal lagu heli karaa wiilkan wiil u eg aniga Minneapolis ciyaalka streetka oo Soomaalidu way isku egyihiin oo waa ark laakiin ma dhahayo 100% wuu yahay okay dhalinyarada waa iskala istaagaa waa raadiyaa waa la igu nacay Soomaalida haday wax bartaan hadama haday wax yihiin ama way ka faanaan walaalahooda kibirkii faangama wanaagsana waa la fadhiistaa cunta la cunaa waa la sheekaystaa waxaan ogala baahanyahay inaan isku naxno ilmaheena ma xumo walaalayaal waxay waayeen qof dhagaysta waxay waayeen qof u naxa
maalin dhaweed minneapolis waxaan ku arkay wiil yar 17 sano u jira nima waaweyn ula fadhiyay waa canaanta kulligood waxaan ku ilmaha yaryar suuqa soo gelinaysaan ilaahay ka baqa idinka hadday nolosha idinka dhacda nima waaweyn haddii ilmaha yaryar faraha ka qaada waxaan ogaaday wiilkii yaraa inuu agoon ahaa inuu rajo ahaa cuntaasi waa soo waday waxaan ku yidhi group home aan ku geeyo wuu iga diiday abtigiisaa soo watay waa agoon waa rajay abtigii wuxuu yidhi taraagu fuula eedda ismaageen bannaankuu soo baxay ilmaha la soo saarayo walaalayaal mas-uula idinka saaran oo soo wadateen oo bannaanka dhigaysaan ilaahay ka baqa hadda ka hor gabar baan bariyey oo qarbi bayax jidka arkay iyadoo wiilkiis haystaan waa walaalkeed 14 jir weeyaan bannaankay dhigaysa uu baryay systemkii ma fahansana waxaan ku yidhi walaal maanta maalinaha inaa ka shalaayi doontaa wiilka bannaankaa u bixin dad baa sugaya dad baa ka faa'iidaysanaya walaalkaa bannaanka ha dhigin winter ay tahay waxa weeye walaal kuma dareemayo xanuun laakiin hooyo iyo aabe waxa weeye way kuu dareemayaan bannaan ma dhigayaan qofku wuxuu dhalay bannaan ma dhigayo walaalayaal waxa wax dhigayo waxa weeye damiir lahayn waan bariyey gabadhii si kastaan wax u fahansiiyey markii dambe way iga yeeshay bila kadib waxaa arkay wiilkiiyo wallaahi baaba'ay oo jidka tuugsanaya duruufaha qaar wiilasha si hoosaha loo dhagaysto walaalayaal qalbigiina u fura ha isdhihinina markaa ag maraysaan boorsi idinka dafaya anima iga dafaan meesha ugu xun ayaan ugu tagaa raashin u geeyaa may dafaan may dilaan iban faamiligayga igu dhacay waxay dhaan way ku dilayaan aakhirka hay dilaan andhaa walaalayaal wiilkaan ila raadiya please qof kastoo garanay ha soo raadiyo qabiilkiisa idin sheegay hooyadii ma seexato hadallada ii duubtay haddaa idin dhegaysiiyo waa qaracmaysaan ma rabo inaa codkeeda soo dhiga meesha because anaaba hadda gariiraya walaalayaal waxaa idinka codsanayaa wiilkaas meelshuu joogo in layla raadiyo walaalayaal hadduu xabsi ku jiro hadduu dhintay wixii yaqaanay hooyadii waxay u baahan tahay nolol iyo geeri walaalayaal ila caawiya bliis xanuunka ila qaybsada walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa qof walba wuxuu geystay inuu adduunya aakhira ilaahay ka abaalmarayo hal jazaa ulixsaan ila lixsaanu ilaahay leeyaa walaalayaal aan isku isxaan falno ilaahay wuunoo asxaan falayaa ilaahay wuxuu yidhi dhulka isugu naxariista samadaa idinkaga naxariisanayaa soomaali naxariistaa ka guurtay qalbigii baa angegay xasid iyo xiq baan nahay walaalayaal qabiil baan isku xumaynaa walaalayaal bliis ila raadiya wiilka kan ilaah waa igu ceebeynin gabadhan miskiinta ana awood malihi walaalayaal aan ka ahayn walaalayaal tusbaxaas dheer basa oo 500 aan ilaahay u dikriyaa ilaahay magacyadiisaan mar walba akhristaa 99ka wax kale awood malihi walaalayaal lacag malihi awood malihi aantii ilaah ahayn ilaahay basaan u baryaa ummadda walaalayaal adkaar noo akhriya qur-aanka noo akhriya wakaasaa wiilkii walaalayaal waxay tiraahdaa 27 meelahaas u jira walaalayaal ila raadiya ilaahay subxaana wa tacaala hooyadaas qalbigeeda ka farxiya mankaankeeda waa kii rabbi la hadlay raximka walaalayaal way jiifan laadahay maxay tood ila raadiya fadlan dadkii soo kariya ilaahay kheyr ha siiyo way la hadashay hadda waxay joogaan garaway u guureenay tiri wiilkaygiyaan iri wiilkaagi ma naqaanayneen nool iyo geeri waa dadaalnay intaa ka badan khalaas marka maraykankana lama joogto ma imaan karto hadda dhoway baasboorkii qaadatay 8 sanayd xayirnayd noloshayda ma seexanay tiri hal habeenna walaalayaal waan idinka codsanayaa weligayda ma oran wax faafiya wiilkaas aan helno please maalin walba ciyaala la dilaa waa aragtaan please soo raadiye walaalayaal